kulankan oo masharax Khaliif Ciise Mudan iyo qaybo kamida bulshadu isku xog wareysanayeen isla markaana su'aalo lagu weydiinayay musharaxa ayaa ka qabsoomay hotel Gufure ee magaalada Qardho. Guddoonka degmada Qardho Cabdi Siciid Cismaan oo kulanka ugu horeyn daahfuray ayaa soo dhaweeyay musharaxa iyo waftigiisa sida ay u xog wareysanayaan bulshadooda. runtii waxay inoo tahay muhiimad gaar ah in musharaxu intuu dadkiisa iyo dhalinyaradiisa iyo aqoon-yahankiisa intuu u yimaado iyaguna waxay daneynayaan weydiiyaan isaguna wuxuu daneynayo u soo bandhigo si uu uga dhaadhiciyo hadafka iyo hiigsiga uu leeyahay. qaar ka mid ah waftiga musharaxa oo goobta ka hadlay ayaa bulshada degmada Qardho uga mahad celiyay soo dhaweyntii diiranayd ee ay ku maamuuseen. waxa leeyaan maanta in badbaadin kara qololaha doorashada Khaliif Ciise Mudan waxay bilaabatay 2 sano iyo 6 bilood ka hor. fikradani waxay ka timid dad siyaasiyiin oo aasaasayashii Puntland ayaga ka codsaday Khaliif inuu musharax noqdo 2019 midka xaq yaqaanee maatada xanaaniya siin kara xuquuqdood mudankana xurmeyn kara waa Khaliif xoreeye xaasha lilaahi xildhibaan taageer waxaad moodaa in dadka laga dhaariyay inay injineer noqdaan inay dhakhaatiir noqdaan inay noqdaan IT technology noqdaan waxaan adduunka maanta casriga ee lagu kala socdo inay noqdaan warwarka cidda doonta ku haysatay muuqaalka marka ofiyada ay u taageeraan amniga kii koofiyad ku dhiganaya inantii garbasaar ku dhiganaysa moobilka tii ku dhiganaysa taageerayaasheeda waxa ka codsanaya balanteedu waa amniga amaano. qaybo ka mid ah dhalinyarada ayaa su'aalo weydiiyay haddii uu ku guuleysto hoggaanka Puntland musharax Khaliif Ciise Mudan waxyaabaha uga qorshaysan baahiyaha aasaasiga. waxaan weydiinayaa haddii alla idmo haddaa madaxweyne noqoto xanaanada xoolaha oo laf dhabarta dhaqaalaha Soomaaliyeed maxaad ka qabanaysaa? musharax Khaliif Ciise Mudan oo goobta ka hadlay ayaa su'aalaha ay weydiiyeen dhalinyaradu kaga jawaabay sida tan. in loo helo meel ay xoolahaas wax ka helaan oo ay abaar ku baabi'in waxay u baahan yihiin in loo sameeyo ceelal ay biyaha ka cabaan waxay u baahan yihiin dhakhaatiir aqoon leh oo muwaadiniin ah oo ka fikiraya xoolahan inay daweeyaan. musharaxa oo hadalkiisa sii watay ayaa carabka ku adkeeyay halkudhigiisa amni iyo ammaano. waxaanu qabanayno dabcan waxaa ku jirta cadaaladda waxaa ku jirta la dagaalanka musuqmaasuqa laakiin waxaasoo dhan waxay imanayaan markii labadan la sameeyo. labadaas maxay yihiin amni dalkan loo sameeyo dadku ay helaan ammaan ay ku seexdaan ku soo toosaan meesha rabaan ku maraan. qof shacab ah cashuurta qofkaas wuxuu bixiyaa in dalka lagu hormariyo in mushaharooyinka lagu bixiyo in wax lagaga qabto dalka buu u bixiyaa. haddaan jeebkayga geliyo soo dhuxuladaba aan qaadanayo maaha. aadan cabdullaahi dagaarshe Somali News TV magaalada Qardho.